waxaan ka tirsanahay qurbajoogta ka mid ah Suudaan kulley hadalka diyaar uma ahayn oo la iibshay xateelanayo laakiin wixii aan ogaa iyo waxa waddanku waa kuma waxay ka sheegi doonaa kulley halkaa markaan anagu joogno waxaan idhahnaa maanta nagu yar badan oo ismaarnaa dekadiya waan ku faahfaahiyo inaan ku soo qabanay laakiin wax ka badan waa lanooga fadhiya leeyahay kabatarkiis wuu noo yimiday waxaanu noogu yimaday Yurub runtii waa soo dhaweynay markii kolley kala soo kulmay meesha horumar ahaana wax badan oo markhaati ka ahayn oo la soo ballan qaaday oo ay ka mid ahaayeen garoon weyn oo loo dhisi doono waa degmada Boorama markhaati baa ka hayno maalinta waa joognaayo nimo badan oo kalo hadda ka joogay iyo xagiisa loo ballan qaaday iyagana in sports loo sameeyo wuxuu ahaa kuwa lagu ciyaaro haddana loo dhisi doono iskuulka dadka disableka ama handicapska in center looga dhigi doono magaalada Boorama oo runtii isagoo dhigi muxuu ahaa iskuulkiisa ballan qaaday siduu meeyar hore uga sheekeeyey oo xaflado hore ama hadallo hore way ku jirtay laakiin intaa markhaati baa ka aha waxyaalahan anagu qabanay markaan halkaa joogno ma badna mana yara marka loo eego runtii wacyiga ka jira dhulka waxaad moodaa dadku had iyo jeer waxay soo turaan qurbajoogta reer Boorama waa laga firfircoon yahay waxaa laga yaabaa wadamada waa lagu yar kala horreeyey waa soo soconaa inaan la raadsin nagala tafiyo waana keeni doonaa waxaan halka ku arkayna kulley mid labadaaba ku soo baxoo fiican imika roobkii baa bilaabmay horumar badan oo gobolka ka jira oo weliba special degmada ka jira oo ka socda kulley waan arkaa xaggan beer baan ku leedahay markaan sii socdo bilishiyaal qurux badan oo laga sii weli aan dhammaan haddii inaan gaari doono laakiin horumahayo way jiraan runtii oo aad baan uga ammaanayna golaha deegaanka iyo meeyirkaba waxaa kaloo odhan lahaa marka qurbajoogga laga hadlayo macnaha competition inta yara qurbaha ku baqay tartan wadagali maysa intii naga badnayd baa ka joogtay wax badan oo dadka waddanka jooga looga fadhiyo markaan dhaqaalahooga eegno markaan joogtaa la soo eegaa laakiin exactly halkay lacagtu taallay waa kan hadday dadku doonayaan inay horumariyaan degmada ama gobolka contribution waa halka ka bilaabo waa asiis cashuurta la bixiyo way waxa weeye lagu dadaalo in wixii horumar qayb laga qaato annagu waxaanu joognay muddo kooban halkan shacab qurbajoogta ku horeeya horta anugu reer dalas baan oo maaragtay wax la yiraahdaa inta badan kuwa geela leh kuwa dabayaan baan anagu Abuud Foundation baan noo markaa reer Abuud Foundation haddaan xataa waxba bixin boo maaragtay magaca Abuud Foundation baa ku dhumanay sidaa dhan Abuud Foundation waxay qabatanaysaa kulley wax soo socday wax joogaba cidna looga sheekeynay marka anagu inta guddiga maalinteeda galoo dhan waxaan ku dhumanay waa Abuud Foundation haddaan Dallas iyo area Texas anahay waxaan idhahnaa qurbajoogga oo dhan kuwa waxay qaban lahaayeen baan qaban marka anaga difaac horta intaasaa nagaga filan maaragtay xaggayga oo Abuud Foundation baa nagaga filan dhallinyaradana waxaan leeyahay maaragtay councilka wixii aad qabateen maaragtay dee wax qarsoon maaha waxa la yidhaha Soomaalidu waxay tiraa cadceed gacan laguma daboolo waxaad qabateenna way muuqataa waxay doonay ha noqoto maaragtay wayna fara badan tahay waqti yaroo gaabanna waad joogtay laakiin anigu hal mid baan nagu dardaarayaa oo dhalinyaro maadaama aad u badan tihiin dhalinyaro waxa la yidhi intii ood ka booday arrin ka boodaa haddii dhaliishayadu khaasatan dadkayga bannaanka jooga ay badato iminka waxaa jira website dhex waliba ay qori karto dee access codekii la wada haysto dee haddii aan been la ii sheegay aan qoro oo geliyo ha ka xanaaqinaya u dulqaata inta badan wayna badan tahay oo maad aragtay dee dad badan oo inay wax iska sheegaan jecel baa jira oo wax reality ka fog inay mar walba sheegaan jecel adigoo wax wanaagsan qabanaya haddaan idhaahdo hebel wax buu qabtay oo kugu bedelo dee ninkii dhalinyaraha uu xanaaqaya wuxuu ayagu ku sideynaya marka anigu waxaan ku dardaarayaa dhalinyaradu inay dulqaadka كل يوم صدق قضاء بان أنا وحكت عم ترى
استفاعنا وين استفاعه ما تقف استخدام ربع جوجنا قدر كل حاجنا waxaan ka mid ahay dadka u badan imaanshaha wadanka bal wixii wax qabadeen ka bishin doona qodobka saddexaadna tala bixin waxa yeeltay bashid qodobka istifaaca hadaan ugu jooganahay wadanka wax badan barto hadaan example soo qaato anagu waxaan ka imid wadanka Denmark reer magacayda hore loo sheegay bulshada ku nool wadanka gobolladan ka tirsan boqol magaalo waa 8 gobol isku wada laakiin waxaanu keenay gobolkan 27 container oo 40 feet maxaa ku jiray markaa container rumadii sheegay diamond ma ku jirta diamond laakiin waxa rabaa in markaati furtaan inay diamond ku jirto bukaanka reer awdal oo dadkiisii dermada u soo qaadeen ama cawda oo isbitaalka loo keenay sariirta kumbuleedka ah oo lagu isticmaalo Yurub daalma noolta misoma ardayga dhagaxa ku fadhiyay oo loo keenay kursiga iyo miiska dugsiyada sare ee Yurub ay isticmaalaan iyo sabuurada lagu isticmaalo Yurub daaima no time soma waan u yarnaa inta kan way naga badan tahay markaa macna maadaama wadanka ugu yaraana ka asaasan isku difaacina oo isku difaacina maxaan ku dhahdaa councilka iyo qoladina martida والناس حسن حديث يقول لها ديجانها يا أصحاب سهرة دنيتها يورمان قولها أو تدخل شلونا يورمان إذا كان كم يدعو بالفطور والصلاة فما أنت أنا ما حكم هاي دنيتها قولها أو تدخل لكن وحكش غيا مجالها هيتها وحنا يقطع شيء سأل وبلعنا مركها مجال مجالها إسبدل كوشة عيوه ما يكملوا aniga oonan ahayn ubajoog oonan wadan kale ku noqnayn ayaan dareemay inteedan hargeysa ku maqanahay oo run ahaantii markaan wadadii hore aan u maray iyadoo shishaban mar labaad soo maray iyadoo dhammaystiran waxay noqotay wax farxad aada igu beertay taasina aad iyo aad ayaan ku mahadnaqaynaa maayarka magaalada dhanka kale xagga qurbajoogta waxaan idin leenahay haddii cabashadu idinku badatay oo laydin leeyahay mar walba waxtarkiinu waa ogaadan yahay maahan sida laydinma hadlayo laakiin waxay ka turjumaysaa maxaa faraska loogu badiyaa usha inaad kasii badisaan waayo wadankiina baahi ayaa idin taala hadalkana maaha waan haray looma hadlo inaan sii badiyana looma baahno kuleytayta bulshada inaan ka hadlaya habo assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ka salaamayaa maayarka iyo martida sharafta si loo soo dhaweeyay ana u hadlaya reer London inkastoo habartay hadashay oo hadlay soo dhamaysay iyo ku darsan lahaa horta magaalada aad u qurux badan tahay inkastoo Soomaalidu aad iska lahaa waxaan jeclaan lahaa saamka magaalada inkastoo la filan laamiyo iyo saamkiisa qof markuu fiisi loo yimaado ama loo yimaado meel lagu arag oo qurux badan inaan ka samaysano oo caawino ka qurba joogta iyo kuwa u yimaadeen Soomaaliya jooga soo hadal badan ma sii wadi karo intaas oo ku sallallahu alayhi wa sallam jaamacadaha oo Soomaali degan yahay geeyo doona hada way ka yimaadeen kadibna fariintii la tagay waxa weeye fariin wanaagsan waxay noqdaan iyagoo si dalbadeed qoranaya halkii ka tagaan iyagoo si dalbadeed qoranaya ay halkii ka tagaan taasina waxay muujinaysaa wax qabarka ee runtii soo kordhiyay marka waxaan oran lahaa qolooyinkan ee qurbajoogga walaalahay waa laga yaabaa in kale uu geedkaan u leeyahay inuu ka deebaan yahay geedkaad doonaysaa geedkaad hoos joogtaan yani geedkaan hoos joogtaa waxa laga yaabaa inuu ka deebaan yahay geedkaad hoos joogtaan marka deebaankaasi anaguna xageega isdhigan mayno idinkuna waxa laga yaabaa waxaad qabataan inuu bulshada wax kusoo kordhin karo waalowtii gobollada qaarkood waxaa laga yaabaa in fursado hadday tahay tababaro hadday fursado kaloo kaabayaal ay tahay in qurbajoog ay wadankaani ka qaataan baa idinkuna kaalintiina
halkaa kasii wada annaga kolley waxaa wakiilnaga ah duqa degmada ayaa wakiilnaga waxa uu qabtay kolley waa la qabanay waxaa ka dhigana kolley annaguna waa la qabnay inaan kolley buuxino waxaan leenahay istaageersi bay labada bartoban ku yeeshaan yani iminku waxa weeye inagoo isku jira inagoo yani isxoojinayna wax isla qabanayna mararka qaarkood marka yar qabanayna qoloyinka qorashooga ayaan yidhahdaa warbala waa dadkii kubadda marka la ciyaaraya qola waa dadka daawanaya qolana waa dadka ciyaaraya dadkan ciyaaraya iyo dadka daawanayaan kolley kubadda dhaliilaha muuqdo waa la galaagoobi waxaa laga yaabaa inay kaa tahayba tamar inay kaa tahay in qofkii joogo daawanaya inuu yidhaahdo war halkan muusadaa yidhaahdo kolley waxaan isleenahay waa tale leh jeclo idinkuna sidaas oo kale waan leenahay waxaan tabashada iyo tiyo waxa weeye waa tale leh jeclo aan leenahay mudalalkaa ha ka sii wadaan runtii ma jecel inaan hadalka badiyo laakiin walaalahay waxaan jecelahay inaan dadka magacoodeerba u sheego waxaad qabanaysaan inaan cidda lagu turin waxaad qabanaysaan inaan cidda lagu regin waxaad qabanaysaan inaan iyankoo kale aan loodanin bedintoole waxaan qabtay hadday tahay wada lahaanshaha ma yaqaanaan waayo wax lagu dhisaa warshado ma laha waxaa loo keeni laayahay dadkeenna isfahminayaan waxaad moodaa dadkeennu inay u badan yihiin macdarlayaal dukaanka aan anigu haysto inaan yaran adeerahu dhiibo khalaas taajir baa leh laakiin adduunku sidaa maaha maanta dad badan oo aqoon-yahanaa jira aqoontana halkana loogu tiriya haddeer nin baa iga horreeya wuxuu hadal lahaa tiraan iyadoo aqoonta halka lagu tiriyo public library ma waa ceeb weyn waa ceeb dhab ahaan waxaa kaloo jirta oon ka codsanaynaa xagga codsigaan u tegayaa belediyada yani municipality-ga annagu qurbajoog haddaan nahay carruur baan leenahay carruurteedu markaan keenno meel ay ku ciyaaraan ma jirto guryahay ku xidhan yihin hargeysaan geynaa mararka qaarka waxaan ka codsanaynaa haddii ay suurtagal u tahay inay qorshahooda hadday sanadka suurtagalooda sanadka dambe ku darsadaan siday ugu samayn lahaayeen carruurta qurbajoogta iyo kuwa kale qurbajoogta xadiiqad weyn oo lagu ciyaaro oo carruurta maaragtay ay u ciyaar tagaan kuwa waxa jira luqadaha aan af soomaaliga garanayn ee isku arkaan kii af xabashiga ku hadlayay waxaan sheegaa kii carabiga ku hadlayay kii maraykanka iyo kii luqadaha kale ee dashka iyo wax kale ku hadlayay inay isku bartaan waanu ka codsanaynaa dowladda hoose hadday suurtagal noqoto ta kale waxaan dowladda hoose weydiinaynaa guud ahaan maamulka gobolka gobollada waddanka somalilan gobollo yaryar oo waxaa jira madaar boorama anugu madaarkeeda waxaa ka soo degay 98 berigaas madaar wax la yidhaahdo wuu iska jira maanta oo ah 2014 madaar ma laha waayo dadkeedaan dadahay dadkeeda maaragtay meelo kale madaaro kale looma samaynaya waayo waa caasimadii labaad ee somalilan waa laga dhaafay iminka caasimadii labaad waa laga dhaafay wax yar oo lagu hadlay iyo sadaqadeena la soo bixiyaan wax macno ma laha waddanka qurbajoogta haddaad rabtaan inay idin yimaadiin dee madaaro samaysta diyaar baan carruurtii meel noogu ciyaaro noogu sameey ahla wasaad ka sax karta waan imanayna qoolkii waa la imanayna marka waxa weeye qolada degmadu inteeda maayarka iyo kooxdiisu inta yare degma ahaan wixii iyagu dowlad hoose waxay qaban karaan dee way ogyihiin xilkooda loo tilmaami maayo sheekhu iminka tuu ka hadlay ee oromada ah iyo ayda magaalada booran waxa qabsaday aydi iyo oromo waay xal wax looga qaban lahay aydan maxaan sidoo odoo iminka sheekhu yidhi dee maqanaabaan nahay oromada aydina mooy wax iska lahay ta kale waxaa jirta aniga shakhsiyan isma faaninayo